iyadoo ay si rasmi ah u furmeen cayaarihii xagaaga ah ee kubadda cagta alaba sanad walba lagu qaban jiray gudaha waddankani Sweden ayaa waxaa sanadkani ku tartamaya ilaa iyo 14 kooxood oo ka kala dhisan wadamo ku yaala qaaradda tani Yurub iyo sidoo kaleeto kooxo iyaguna ka socday qaaradda Australia. wadamada ay ka socdeen kooxahani ayaa waxaa ka mid ah Denmark, Sweden, Holland, Ingiriiska iyo weliba qaybo kale. waxaana sidoo kaleeto tartanka cayaaraha kooxahani kubadda cagta ku dhex maraya gudaha waddankani Sweden uu yahay mid socon doona muddo 2 isbuuc sida uu ku waramay gudoomiyaha qabanqaabada cayaarahani oo lagu magacaabo Weli Xasan kadib waraysi gaar ah uu siiyey TV-ga caalamiga ah Somali Channel furitaanka cayaaraha. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحال إرادة أول مالين وحانا قدومية قوانقاوة حيارة حقاقة سيوكي لبدا كون كوي تبنكا كدعاية مقال استوكولم حافظة إسبونغا قرانك إسبونغا إيبي عياران وعيارو حقاقة لغو تلقالي قرب جوكت الصوماليات يوروب ديكن نورد أمريكا إلى أستراليا سيدا الله سبحانه حيارة حقاقة وحي عانكو يهين إنا كدعاية مقال استوكولم مثل مركزنا sanadkan waxaan ku daadinaynaa 14 kooxood ay u badan yihiin kooxaha ka yimaada Yurub waxaa ku zaayida kooxda Australia kooxaha ku cusub waxaa kamid ah kooxda Switzerland oo suura ka timid waxaa kamid ah koox kale oo ku soo caysanay horseed oo UK ah iyo koox Stavanger oo magaalada Norway ka timaada waqooyigeeda cayaarahan maanta ayay furmeen oo ay bisha tahay 8 bisha July waxayna socon doonaan ilaa 24 July haddii aan leedmo maalin axad ah. marka ciyaarahan laga hadlayo ujeedada ugu muhiimsan ee aad sanad walba u qabataan iyada maxaad u sharaxi kartaa dadka ku daawanaya oo arrinta ku saabsan ciyaaraha xagaaga waxaa loo qabtaa arrimo badan oo isugu jiro dhaqanka isdhexgalka dhalinyarada oo waqti u hela in kula kulmaan dhalinyarada asaagooda ah ee degan daafaha Soomaaliyeed isla markaasna horumar u noqoto iyo hordhac dhalinyarada xiisanaysa inay kubadda cagta tiigsadaan in waqtigooda ku soo saaraan ciyaaraha xagaaga isla markaasna looga hortago waxyaalaha muqaadaraadka dhalinyarada la soo gudboonaan karta xilliga iskoolada ay xiran yihiin gudoomiyaheeda Cabdiweli iyo inta la hormaata afraha iyo ragga kale aad baan ugu faraxsanahay sanadkii labaad oo imaanayo weeye 2009 baan nimid 2011 hadda la joogaa marka aad baan ugu faraxsanahay yani qabanqaabada ay wadaan iyo siday u dhiirigelinayaan isboortiga yani waxaan aad ugu faraxsanahay inaad garateen dadkaad martida u tihiin calankoodana inaad meesha surtaan inaadna ku martiqaadaan waa wax loo baahan yahay maartay ana reer magaalnimo malaha waa saacada waxaas idin baraa u malaynaya marka aad baa u mahadsantihiin ciyaar wanaagsan barnaamijyadan kubadda cagtu ay noqdaan barnaamijyo soo celiya sumcadeena dhalinyarada ciyaarayna waxaan ka codsanaynaa inay ilaaliyaan akhlaaqda walaaltinimada kala dambeynta iyo is-ixtiraamka waxaan leenahay dhammaantiin insha Allah Allah ka dhigo intay kubaddu ay socoto kubad maaragtay indhuhu iyo qalbigu intaba ay ku raaxaystaan jazakumullahu khayr assalamu alaykum waxaan rabaa kaliya inaan wax yar aan ka sheego inta ugu muhiimsaneed inay booliiska ay qayb ka yihiin sanadkii oo dhan wixii la soo qabanqaabinayay wada shaqayn fiican ay kala dhaxayso ururka Suuki iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee degan xaafadaha Yarba oo Rinkeby Tansa ama Isboonga oo dhan sida la wada socotaan booliiska iyo Suuki waxay wada sameeyeen koob loogu talagalay oo la yiraahdo koobka dishibliinka oo mar walba sanad walba la guddoonsiiyo kooxda soo bandhigta akhlaaq wanaag markay garoonka ku jirto iyo markay banaanka ka joogtaba ayaa wadajir ayaa u wada sameeynay macnaha inay biladaas ay helaan marka uuna idinkaga mahad celinayaa inuu ku soo dhaweeyo dhammaan dadka ka yimid meelaha kala duwan waa maasantiin ciyaarahan xagaaga ee maanta si rasmi ah uga furmay gudaha waddankani Sweden ayaa labada kooxood ugu horeysay isla markaana maanta lagu furay ahaayeen
kooxda Leicester oo ka socota dalka Ingiriiska iyo sidoo kale tan kooxda kale in lagu magacaabo qaran ay ahayd mid ka mid ah kooxaha ka socda gudaha waddankan Sweden waxa sidoo kale la filayaa inay iyana qaybaha kale ama maalmaha soo socda kooxaha iyagu ka wada qayb gali doona tartankani xagaaga ee ka furmay gudaha waddankan Sweden ay fooda isku dari doonaan taasi oo natiijaduna ay noqon doonto mid soo gabagabowda muddo 2 isbuuc kadib Bashir Salaad Ugaas TV-ga Somali Channel Sweden